gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug maamulka caasimadda Dhuusamareeb wasiiro xildhibaano ka tirsan Galmudug siyaasiyiin iyo boqolaal qaybaha bulshada kamid ah ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ogaas Nuur ee caasimadda Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa bulshadii iyo mas'uuliyiintii soo dhaweysay la dhex qaaday salaan waxaana intaa kadib loo soo galbiyay gudaha magaalada Dhuusamareeb duqa caasimadda Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gidaqorow oo soo dhaweynta ka hadlay ayaa sheegay in cid walba oo mas'uul ah ay ku soo dhaweynayaan caasimadda Dhuusamareeb salaam kadib runtii waxa sharaf weyn iyo amaan maanta noo ah inaan ku soo dhaweyno magaaladan caasimadda Dhuusamareeb gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo deegaanka booqasho ku yimid deegaankoodii soo booqday iyo dawladdoodii waxaan leenahay marka hore gudoomiye soo dhawaada adiga iyo xisbiga aad hogaaminaysaan runtii aad iyo aad aan ku faraxsanahay deegaanku waa deegaankiini dalku waa dalkiini qof kasta oo reer Galmudug waa loo yeeray waxa la idinkaga baahan yahay cilmigiina iyo aqli iyo calaf iyo cudud waxaad haystaan inaad Galmudug ku kordhisaan Galmudug meel fiican ay maanta maraysaa horay loo dhaqaaqay adinkana maaragtay runtii waa nala joogteen haddana waa soo daahdeen waxaan rabnaa insha Allah meesha saddex marsiin aan ka sii wada anba qaadno soo dhawaada waa mahadsantiin ka soo qaybgalayaalka iyo soo dhaweeyalka runtii aad iyo aad muga weyn soo dhaweeyay gudoomiyahana waa u mahad celinaa hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta kula hadlay hoygiisa uu ka degay magaalada Dhuusamareeb ayaa bulshada iyo mas'uuliyiinta Galmudug uga mahad celiyay sida diiran ee u soo dhaweeyeen waxa uu nafafaayin ka bixiyay socdaalkiisa waxa uu daaran yahay isagoo sheegay inuu soo gudbi doono deegaano kale oo safarkiisa uu ku wajahan yahay magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay waa soo dhaweynaha filashadeeda qabnay runtii aanan ka filayn dadka deegaanka ah aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa in aan soo xoojino booqashada halkan iyadoo meeshan shirar muhiim ah oo isdaba joog ah oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ay ka dhaceen oo masiirka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ayaheeda dan u ah looga tashanayay inaan maanta soo gaarno aad iyo aad ay farxad noogu tahay maalmahanna waan sii joogi doonaa haddii la yiraahdo arki doonaa madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba kulamo maaragtay la yeelan doono aad iyo aad ayaan runtii mar kale uga mahad celinaynaa soo dhaweyntaas qiimaha leh sharafta leh ee maamuuska sare leh ee aan loo kala harin shacab iyo mas'uuliyiin iyo madax intaba waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan maalmaha aan joogno aan kala bogo doono socodkeennana uu ku wajahan yahay deegaanadan Galmudug ilaa iyo Puntland intaba mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kamid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee dhanka mucaaradka waxaana socdaalkiisu imaanaya xilli la filayo dhawaan ee dalka ay ka dhacdo doorasho heer deegaana Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare wararka warbaahinta Star Dhuusamareeb